بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصدنا maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa haweeney waayeel ah waxa ilmo kala haad hal wiil. Wiilka waxa uu ahaa nin ganacsada ah oo waxa uu furnaa dukaan. Da'diisana waxa ay gaartay 40 sano jir ayuu noqday. Hooyadana mar walba waxay tamaniin jirtay ama ay jecleed in ay aragto wiilkeeda oo guursaday ilmana Ilaahay siiyay. Wiilkii waxay ku jirtay hooyo ma guursatid. Asayna mar walba waxa uu dhihi jiray waan guursan doonaa laakiin xilligeedii lama gaarin. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyadii taas soo weerartay ama u soo wajahday wiilkii ayada oo ka codsanayso in uu guursado. Wuxuu yiraahday hooyani noloshaydan waan ku faraxsanahay. Nimca adduunyada adiga ayaan ka haystaa adiga ku daryeelaa cid kale aan u baahanahay malahan. Arrimahayga oo shakhsi ahaaneed ee guurkayga ah kaas xilliga ay noqoto anaa guursan doono ay culays ay igu saarin kuwaas aniga ay qaas yihiin. Hooyadii oo aad iyo aad wiilka hadalkiisa ku naxday ayaa waxay tiri haa waa sax adiga ayaa iska leh midaas laakiin hooyo ma ogtahay waxaan jeclahay adiga oo reer leh inaan arko ilmahaagii inaan arko aniga oo nool. Wiilkiina wuxuu yiraahday waxaas hooyo dan uga bax ha isku shidaynin. Hooyadana had iyo jeer waxay bari jirtay Ilaahay oo waxay ahayd haweeney mu'minada salaatu leyl tukato inta badan salaadaha ku dadaasho sadaqa badan mar walbana Ilaahay waxa ay ka bari jirtay in uu Ilaahay wiilkeeda hanuuniyo. laakiin wiilka dhanka kale wuxuu ahaa opposite wuxuu ahaa nin xagga fisqiga iyo macsida iyo qamriga aad iyo aad u jecel. Haween walba wuxuu iska aadi jiray meelahaas iyo wareegaas iyo tumasho ayuu iska aadi jiray. Waxa dhacday markaa asoo sidaas ay xaaladiisa ahayd ayuu wuxuu la saaxiibay saaxiibo kale oo aad iyo aad u xun ayuu la saaxiibay. Waxa uu sameyn jiray wiilkan mar alla marka uu dukaanka soo xirayo waxa kaash oo lacag hayo iyo waxa isleeyahay alla ilaahay waa dahab wuxuu ku soo shuban jiray kiish aad iyo aad u weyn uu soo qaadi jiray wuxuu u keenay jiray hooyadiis. Hooyay kiishkan ilaali xoolo dhan asaga ayaan ka leenahay haddii uu dayaxmo annaga dhan waan dayaxmaynaa. Kadibna wuxuu sii aadi jiray howlihiisa kale. Habeenkan halkaas ayuu qamaar iyo qamro iyo waxaas oo ka dawariga. Waaga markuu soo dhow yahay ayuu guriga imaadaa subaxdiina alaabtiisa u qaataa dukaankiisii ayuu furtaa. Niman tuuga ah ayaa waxay arkeen xaaladda wiilkan uu ku sugan yahay. Waxay go'aansadeen mid ka mid ah go'aansaday tuugadii in uu ninkan si alla si uu ku dhici kara uu dhaco hantidaasna ay asaga gacantiisa ay soo gasho. Go'aan ayuu ku qaatay. Wax walba hadduu sameeyay waxa uu suuroobi weysay sidii uu ku heli lahaa ninkan xoolihiisa. Markii albaab u furmi waayay ayuu wuxuu go'aansaday in uu asaga la saaxiibo si uu u helo sirta meesha ay hantidiisa ay jidho. Wuu la saaxiibay in muddo ah ayuu la socday saaxiib aad iyo aad isku wanaagsan ayay noqdeen. Tuugii wuxuu yiri alla ilaahay ninkan doqonka ahi hadda ayuu ku aaminay oo wax uu ka qarsanayo malahan. habeenada ka mid ah iyadoo marka la joogo meeshii ay qamriga ku cabi jireen ayuu markuu ogaaday ninkan in uu si fiican qamriga uga dhargay ayuu waxa uu yiraahday kii tuugga ahaa aniyo saaxiibkayga oo saa u jeedno waxa tahay nin adiga hanti leh lacag ayaa leedahay way ka muuqataa haddana waxaad imaataa dukaamankan iyo meelahan baararkan adiga oo ka murugaysaneyn xoolahaaga iska cabtaa ilaa subaxdiina waa joogtaa. waxaa marmarka qaarkood is yiraahdaa ninkan malaa'ig ayaa u imaad ee dukaankii iyo meelahaas u wardiyeyso ama waxyaabo kale oo jinniyaal ayaa la shaqeeyo oo meesha u wardiyeeyo si nabadgelyo ah oo farxad leh ayaa nugula joogtaa. xoolahaagiina uma malaysidba in ay ka dayacan yihiin. ninkii dukaanlihii ahaa ayaa wuxuu ugu jawaabay oo qoslay
waxaad leedahay waxaad is leedahay xoolihiga waxaan ku aaminayaa wax cirka kasoo degayo inaan ku aaminaya kula tahay ama jinyaal sababtoo maba aas arkayna kuwaas. markaasuu yidhaahday oo waayahe sidee yeeshaa oo yaa kaloo kuu waardiiyey shaqaalo kale oo aamin ah ayaa kuu joogo. wuxuu yidhaahda maya aniga dukaanka markaa soo xirayo waxa ugu muhiimsan ee hantida ah sida dahabka iyo dirham iyo lacagahaas dhan waan soo qaadaa guriga ayaan geeyaa hooyaday ayaa joogto aamin ah ayadaa u dhiibaa subaxdiina waan kasoo qaadaa oo dukaankayga ayaan la aadaa oo hadduu dukaanka imaado waxuu ka qaadi kara male hadduu u barto kartoon ama bokis ama biryar ayuu qaadi karaa marka waxa handhoodii aniga ku khasaarayo ma ahan. tuugkii halkaas wuxuu ka helay sirtii ninkaa hantidiisi meesha ay taallay. maalinkii dambe ayuu wuxuu u dhuuntay meel u dhow dukaankiisa. ninkan markii xilligii maqribkii la tukaday ayuu dukaankii soo xiray kiishkiisiina waa uu soo qaatay isagana waa uu soo raacay ilaa uu ugu imaaday hooyadiis. guriga ayuu galay kiishkiina waxa uu ku wareejiyey hooyadii kadibna asaga wuu iska soo baxay. hooyada guriga ay degan yihiin waxaa guri dhagax ah oo aada iyo aada shub u ah korkana shub ka shuban oo aan lahayn meel laga baxo iyo meel laga galo. albaabkiisana wuxuu ahaa bir xoog leh ayuu ahaa. bes waxa ay maamadii hor fadhiisatay albaabkii meeshaas ayaynu isaga karsanaysay casho. tuuggiina meel u dhow ayuu joogay oo waxa uu la socday maamada xaalkeeda oo waxa uu isdhehayay marka ay cashada kariso way xaran doontaa. maamadii markii cashadeedii iyo wixii ay karsan lahayd ay karsatay kadib oo alaabtii iska xaraysay waxay soo qaadatay salli waxayna bilowday in ay tukato. wuxuu yidhaahda allayle hadday markay cishaha tukato way xaran doontaa laakiin maamada cishama waysan tukanaynin salaado kale ayay gashay iyo wardiba sidii u sugayay ayaa waxay ku gaartay xilli dambe habeenkii. wuxuu yidhi allaylehe maamadan ma aha mid salaada ka baxayso haddii aad saa u sugana waaga ayaa baryayo dadka ayaa soo kici doono. wuu fakeray qorshihii oo maamadan uu ku dhici lahaa. wuu baxay wuxuu soo qaatay labis aada iyo aada u qurux badan barfuun tiro badanna uu isku soo buufiyey. dhinaca gadaale ayuu maamada kasoo maray asagoo meel jaranjaraha kasoo boodayo ayuu jig soo dhahay. maamadiina caraftii iyo jugtii ayaa way dareentay hadday fiirisay mise waaba qofkan way jalaacday ileen salaad ayay ku jirtay. qalbiga ayay waxay ka tiraahday ilaahayow shaydaankan iga nabadgeli waxaan u malaynayaa in uu tug yahay. maamadii ayuu la hadlay markii salaadii ay dhammaysatay ayay u jawaabtay oo waxay tiri maxaa ahayd. wuxuu ku yidhaahday aniga hayga baqin shaydaan ma ihi waxaan ahay malag oo ilaahay soo diray wiilkaaga ayaa lai soo diray wiilkaaga caasiga ah inaan edbiyo oo laiima soo dirin in aan nafta ka qaado inaan jug gaarsiiyona laiima soo dirin. maamadii ayaa waxay tiraahda waayahay oo maa shaqadaada qabsatid hadduu rabbigaa ku soo diray. wuxuu yidhaahday rabbigay waxuu ii soo diray in wiilka aan edbinno adig anigaba si tartiibna aan u edbinno. waxay tiraahda sidii loo edbinayaa. waxa uu ku yidhaahday hantidan u xaraysan oo adiga kuu keensaday taas ayaa laga qaadayaa markii uu shiid dareemo oo toobad keenana waa loo soo celinayaa xoolihiisa. intaas ayaa cinqaab looga dhigayaa. maamadii oo fahantay ninkan khiyaanada uu wato iyo tuugnimadiisii ayaa ayadoo iska waalin waxa ay tiraahday aaway hantidii. waxa uu yidhaahday guriga ayay ku jidhaa. okay ayay tiraahday waxa ay ka furtay albaabkii ayadoo daba kacday. ninkaana gudihii ayuu hore u galay. markuu xoogaa sii galay ayay maamadii tartiib tartiib waxay ugu noqotay gadaal. albaabkii ayayna si xoog leh u xirtay khataar kor kaga gelisay waa ayna ku qufushay. tuuggii ood arkay in uu ku dhacay shabaq ayaa wuxuu maamadii ku yidhaahday iga fur albaabka.
wuxuu tiraaday adigu waxaad tahay malag, malaggana anina meel mugdi ayaan joogaa, nuurka ka soo baxayo inuu indhahay tiro ayaan ka baqayaa. Waxa uu jawaabay, maya nuurkayga waan dansanayaa oo wax nuurkuu dhibi doono ma arkaayo. Waxay taani qof waayeel ayaan ahay, indhahaygaana waa u turayaa, iniyoodii malag baa tahay, rabbiyaa ku soo diray, xitaa meelahaas kore ka bax, iyo daaqada bidixdaada shabaqa yarkaa lehna ka dhex bax, aniga culeys hay saarin. Tuugii oo ogaaday in uu shabaq ku dhacay, maamadana ay fahantay qorshihiisii, ayaa isdhiibay. Wuxuu yidhaahday, maamoy, iska kii cafi, dib dambe uma soo noqonayin ee iga fur albaabka. Lama aysan hadlin. Tuugii waxa isku dayay derbiga inuu bal meel ka jabiyo si uu u baxo, laakiin meel uu ka bixi karo waa uu heli waayey, albaabkii waa uu joogi waayey. Wuxuu yidhaahday subaxdii haddii uu baryo ninkii saaxiibka ahaa wuu imaan doonaa, wuuna ku arki doonaa, halkaasna waxaa kala kulmi doontaa dhibaato. Halkaas markii ay maraysay ayuu wuxuu bilaabay in uu baryadii badiyo. Zaa'id ayuu u baryay, ayadana kama aysan dhageysan. Ilaa waagii ka baryay ayay meeshaas ay ishor fadhiyeen. Waagii markuu baryay ee qoraxdii soo baxday ayaa sidii caadadii ahayd wiilkii dib ayuu u soo noqday. Markuu imaaday ayuu hooyadiis wajigeeda wuxuu ka arkay dhafar aad iyo aad u fara badan, indhaheedii oo gaduutay iyo daal. Wuxuu yidhi, hooyo xalay miyaa qarnatay, ma dhibaataa la kulantay, sidee waaye, indhahaaga ash maahan, xoogaa waxaa kaa muuqdo murugo aad iyo aad u fara badan iyo daal. Wiilkii intaas markii uu dhahay, maamadii waxay tiraahday, maya, sida aad moodayso maaha xaaladdu. Xalay waxaa noo imaaday tuug, kaas oo meelaha kaa soo ugaarsaday, kulana socda adig korkaa weydaysanayay. Wuxuu damcay inuu ay khiyaano, anigana asagoo saga kay dhigaya malag Ilaahay soo diray. Anna albaabka ayaan u furay, markuu gudaha galayna waan ku qufulay, ilaa haddana gudaha ayuu igu jiraa. Markii intaas ay dhamaaday ayuu wuxuu yidhaahday, waayahay hooyo, waxaan aadayaa askarta, askar ayaan soo wadanayaa, saas ayaan gudaha u galaynaa. Askartii markii la keenay ee albaabkii la furay, waaba ninkii saaxiibada ahaayeen oo meeshii ku jiro. Aad iyo aad ayuu u naxay. Wuxuu yidhaahday, ma adiga qofka doonayo inuu i dhaca, intaas oo wareeg wax u soo martay hantideeda inaad dhacday miyaa? Aad iyo aad ayuu nagu shallayay inuu la saaxiibay dad noocaas ah. Wuxuu hooyadiis ka ballan qaaday maalintaas wixii ka dambeeyay hooyadiis in uusan la saaxiibi doonin dad xun, oo nala saaxiibi doono dad wanaagsan. Meelaha xun ay imaadaanna uusan tegi doonin, uuna aadi doono beddelkeeda masaajidada, meelaha khayrka lagu haayo inuu aadi doono. Aad iyo aad ayuu ugu farxaday. Waxa uuna kaloo yidhaahday, waxaan diyaar u ahay sidii aad jeclayd inaan kuu yeelo ay ahaa ma guursatid. Kadibna gabar wanaagsan ayay u raadisay wiilkii hooyadii oo saalixad ah, waana loo guuriyey. Ilaahayna wuxuu ka siiyey wiilal iyo gabdho intaba. Wixii maalintaas ka dambeeyay waxa ay ku noolaayeen nolol farxad leh ayay ku noolaayeen.